بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينه ku-xigeenka dowladda Puntland gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenada xubnaha golaha wakiilada shaqaalaha iyo howlwadeennada kala gedisan ee baarlamaanka saxaafadda iyo dhammaan inta kale ee ka soo qayb gashay iyo dadweynaha guud ahaan hawada kala socda waxaan inugu salaamayaa marka hore salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan dhammaantiin salaantaa kadib mudanayaal waxaan ku faraxsanahay in maanta hortiina imaado si rasmi aan u furno kalfadhiga 46aad ee golaha wakiilada anigoo idin wadaagi doona warbixin kooban oo taabanaysa xaaladda guud ee Puntland waxqabadkii hay-adaha dawladda intii u dhaxaysay labadii kalfadhi siyaasadda guud ee dalka iyo dadaalada lagula tacaalayo xanuunka COVID-19 guud ahaan dalka xaaladiisu way wanaagsan tahay nabadgelyo iyo horumar dhinacyo badan ayaa ka socda marka laga reebo saamaynta caabuqa COVID-19 iyo fatahaadda roobabka kuwaasoo sababay caqabado kala duwan sida aad la wada socotaan COVID-19 wuxuu saamayn badan oo kala duwan ku yeeshay nolosha iyo badqabka dadka reer Puntland kuwaas oo ay ka mid yihiin hoos u dhac dhaqaale oo baaxad leh saamayn bulsho oo sababay isku socod la'aan hoos u dhac dakhli oo xoog leh cabsi sababtay in qiimaha maciishada quutul dariiriga ah sare u kaco iyo ugu dambeyn hakad ku yimid howl maalmeedka shaqo ee xarumaha dawladda si loo xakameeyo faafidda caabuqa COVID-19 dawladdu waxay qaaday tallaabooyinka soo socda waxay dhistay guddi ka kooban dawladda culummada bulshada rayidka ah iyo dhakhaatiirta kaasoo shaqadiisu tahay isku dubarididda howlaha ka hortagga iyo la tacaalidda caabuqa COVID-19 waxaan diyaarinay 15 xarumood oo loogu maareeyo dadka qaba caabuqa COVID-19 xarumahaas oo aan u dhammaystirnay shaqaale xirfad leh iyo agabka daruuriga u ah la tacaalidda xaaladda bukaanka xanuunku haleelay waxaan shaybaar laga baaro caabuqa COVID-19 ka furnay magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso xarumahaas oo si rasmi ah u baara dad tiradoodu ku dhowdahay 1000 qof waxaana baaritaankaas kadib la xaqiijiyay 235 laga helay caabuqa COVID-19 waxaa bogsaday 58 waxaana u dhintay 6 oo uu ka mid ahaa wasiirkii deegaanka iyo isbeddelka cimilada allaha u naxariistay dhammaantood waxaan hirgelinay wacyigelin baaxad leh oo aan dadka kula wadaagayno siyaasadaha looga hortagi karo xanuunka annagoo sidoo kale joogtaynay la socodsiinta bulshada heerka xanuunku marayo oo aan ku soo bandhignay war-saxaafadeedka maalinlaha ee ka soo baxa guddiga waxaan soo rognay xanibaadyo isku socodka bulshada iyo meelmarinta qorshaha looga hortagayo faafidda caabuqa oo ay ka mid yihiin soo rogiddii bandowga mamnuucidda shararka iyo isku soo baxyada iyo hakinta safarada gudaha iyo dibadda xanuunkan wuxuu si gaara u saameeyey habsami u socodka waxbarashada haddaba si aan u joogtayno adeegga waxbarasho ee heerka fasalka 8aad iyo 12aad waxaan hirgelinay hanaanka maqal iyo muuqaal oo ardayda toos casharada ugala socdaan TV-ga dawladda iyo warbaahinta kale waxaa la nimid qorshe istaraatiijiyadeed kaasoo lagu dhiirigelinayo beeralayda reer Puntland inay beertaan dalagyada aasaasiga ah oo ay ka mid yihiin haruurka galleyda digirta isla markaasna beeralaydu ku wajahaan hababka cusub ee beeridda dalagga si dalku u yeesho wax soo saar cunto oo ku filan si loo yareeyo ku tiirsanaanta cuntada dalka dibaddiisa nooga timaado
si looga hortago in caabuqa covid-19 uu ku fido xabsiyada waxaan cafis u fidinay 194 maxbuus oo ku xirnaa xabsiyada Puntland kuwaas oo u xirnaa dembiyo fudud waxaa sidoo kale loo qeybiyay ciidamada xabsiyada agabka badqabka oo looga hortagay karo caabuqa covid-19 waxaan soo saarnay warbixin guud oo lagu qiimeynayay saamaynta dhaqaale ee uu sababay caabuqa covid-19 iyadoo ay dhinac socotay diyaarinta qorshe istiraatiijiyadeed iyo halbeegyo lagu xadidayo saamaynta covid-19 dadaaladaas waxaan la wadaagnay bulshada reer Puntland beesha caalamka dowladda federaalka iyo bangiga adduunka iyo wadamada aan saaxiibka nahay inay gacan naga siiyaan dowladdu waxay sii wadi doontaa dadaalka ay ugu jirto xakamaynta caabuqa in uusan ku faafin deegaanada Puntland waxqabadka hay-adaha dowladda mudana gudoomiye mudanayaal muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi iyada oo weliba uu soo siyaaday caabuqa covid-19 oo saameynaha aan ka soo sheekeynay ku yeeshay howlihii dowladda iyo guud ahaan habnololeedka bulshada haddana hay-adaha dowladdu waxay sii wadeen qabashada howlihii u qorshaysnaa iyaga oo dhinac kalena fulinayay habraacyada ka hortagga caabuqa covid-19 si loo ilaaliyo badqabka mas-uuliyiinta shaqaalaha iyo dadweynaha loo adeegayo waxaa xusid mudan in iyada oo taxadarkaasi jiro haddana mas-uuliyiin isugu jirto wasiiro saraakiil sarsare iyo shaqaale dowladeedba uu haleelay caabuqa iyaga oo gudanaya waajibaadka ay ummadda u hayeen waxaa si gooniya u xuseynaa wasiirkii wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada marxuum Ismaaciil diiriye gamaadiid allaha u naxariiste innaga oo dhanna samir iyo iimaan haynaga siiye haddaba waxaan halkan ku soo koobayaa waxqabadka hay-adaha dowladda ee muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi anigoo ogsoon waxqabadka oo faahfaahsan in wasaaradaha iyo hay-adaha dowladdu la wadaageen guddiyo hoosaadeedka baarlamaanka amniga iyo dimuqraadiyeynta iyo arrimaha gudaha waxaa meel wanaagsan maraya hirgelinta nidaamka axsaabta badan iyo u diyaargarowga qabashada doorasho qof iyo cod ah oo ka qabsoonta golayaasha deegaanka ee dhammaan degmooyinka Puntland guddigu wuxuu wejigii koowaad diiwaan geliyay 17 urur siyaasadeed waxaana la filayaa in uu soo saaro liiska kama dambaysta ah markay dhammeeyaan qabashada shuruudaha wejiga labaad waxaa naga go'an in hanaankan uu hirgalo dibna aan loogu noqon hanaankii soo xulista ee lagu soo dhaqmay 22 sano ee ay jirtay Puntland haddaba si aan u xaqiijino ka go'naanshaha dowladda waxaan furnay urur siyaasadeedka ka oo dowladda ay qayb ka tahay waxaan rajaynaynaa cid walba oo bulshada reer Puntland ah oo ku qanacda mabaadi'da iyo barnaamijka siyaasadeed ururka aad qayb ka noqon doontaan ururka siyaasadeedka ka waxaan kale oo ka socda dhammaan gobollada Puntland wacyigelin badan si bulshada u fahmaan ahmiyadda nidaamka axsaabta badan kaasoo horseedaya in laga guuro nidaamkii hore loona guuro in sanduuq furan lagu doorto wakiilada shacabka waxaan guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka Puntland la garab istaagi doonaa taageero kasta oo ay u baahan yihiin iyadoo aan ilaalin doono madax bannaanidooda si loo xaqiijiyo gaarista dimuqraadiyad dhab ah waxaa socda oo guulo laga gaaray fulinta qorshaha dib u habaynta ciidamada iyadoo intii labada kalfadhi u dhaxaysay la sii waday hirgelinta tirakoobka hubinta iyo diiwaangelinta ciidamada dowladda qaybahooda kala duwan iyadoo la adeegsanayo nidaamka casriga ee biometriga waxaa sidoo kale tababar loo furay qaybo ka mid a ciidamada la tirakoobay tababarkaas oo lagu qabtay xeryaha 54aad xorgoble baran iyo akademiyada booliiska Carbo ciidamadaas oo la isku dhafay mushaharkooda la siyaadiyay ayaa ka howlgeli doona gobollada Puntland waxaa qorshaysan in dib u habayn iyo tababar ay ka faa'iideysan doonaan dhammaan ciidamada dowladda waxaa sidoo kale dib u habayn ku sameynay maxkamaddii sare ee ciidamada iyo dembiyada culus dowladdu waxay howlgallo xoog leh ka fulisay magaalooyinka Garowe Gaalkacyo Boosaaso buuraleyda Calmadow iyo Calmiskaad si looga adkaado argagixisada Daacish iyo Al-Shabaab oo falal amni darro ah ka geysan jiray deegaanadaas
intii lagu guda jiray howlgalkaas ciidamadu wuxuu fuliyey howlgallo gaar ah oo lagu laayay madax ka tirsan argagixisada kadib markii ay iska caabin kala hor yimaadeen ciidamada amniga sidoo kale waxaa la qabtay xubno kale oo muhiim ah oo ka tirsanaa argagixisada iyaga oo la marin doono cadaaladda intii ka dambeysay dilkii arxadarrada ahaa ee lala beegsaday labadii guddoomiye ee gobolka Nugaal iyo Mudug waxaa ciidamadu ku guuleysan in la burburiyo shabakadihii qaraxyada u xirxirayay iyagoo laga soo qabtay intii badnayd dhagarqabayaashiina ka dambeeyay qaraxyadaas kuwaas oo la hor keeni doono maxkamadda cadaaladda deegaanada Puntland waxaa ka da'ay roobab xoog leh oo geystay khasaaro naf iyo maal leh gaar ahaan waxaan ugu darnaa roobabkii sababay fatahaadii 28 Abriil 2020 ee magaalada Qardho saameeyana nolosha iyo hanti in ka badan 8,000 oo qoys dowladda shacabka Puntland iyo ka Soomaaliyeed iyo hay-aduhu waxay ugu gurmadeen si xoogan waxaana guddiga gurmadka fatahaadda soo gaaray gurmad lacageed oo dhan 2,670,000 iyadoo laga jawaabayo wajiga koowaad ee gurmadka ayaa waxaa raashin gaarsiinay ku dhowaad 12,000 oo qoys oo si toos ah iyo si dadban ay u saameysay fatahaadii oo isugu jiray dadka deegaanka barakacyaasha iyo qaxootiga waxaana halkaa uga mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay gurmadka Qardho oo ay ka mid yihiin guud ahaan shacabweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Puntland dal iyo dibadda arrimaha maaliyadda iyo horumarka dhaqaalaha mudane guddoomiye mudanayaal iyadoo aynu wada ognahay sida ba'an oo COVID-19 u saameeyay heerka dhaqaalaha Puntland xukuumaddu waxay hirgelisay siyaasad guntigiijis ah si aysan u kala go'in bixinta adeegyada aasaasiga ah iyadoo dhammaan mushaharooyinkii adeegyada howl socodsiinta dowladda gunooyinka shaqaalaha raashinka ciidanka iyo dhammaan kharashaadka kale ee daruuriga ah aynan wax ka kala go'ah ku imaan waxaa la soo gabagabeeyey soo saaridda qorshihii horumarinta Puntland 2020-2024 waa qorshe ku dhisan baahiyaha iyo ahmiyadda afarta qaybood ee hay-adaha fulinta dowladdu u qaybsan yihiin kuwaas oo kale ah amniga iyo sarreynta sharciga horumarinta arrimaha bulshada horumarinta dhaqaalaha maamul daadejinta iyo dimuqraadiyeynta muddadii u dhaxaysay Janaayo ilaa iyo Abriil 2020 waxaa la dhoofiyey xoolo tiradooda gaarayso ku dhowaad 1 milyan oo isugu jira ari lo iyo geel dhammaan xoolaha dhoofay ayaa loo dhoofiyey suuqyada Yemen Cumaan UAE Bahrain iyo Kuwait xukuumadayda waxaa ka go'an in ay raadiso suuqyo kale oo caalami ah waxaa sidoo kale aan awood saarnay ka warqabka xaaladda caafimaad iyo nafaqada xoolaha si aynu uga faa'iideysano suuqyada furmay sida aan kalfadhigii hore ugu soo bandhignay ahmiyadda ay leedahay dadaalada iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah iyo kuwa madaniga ah xukuumaddu waxay mudnaan siisay sidii loo abuuri lahaa jawi u diyaarsan in lagu maalgelin karo deegaanada Puntland iyadoo taas laga duulay ayaa waxaa dhiirigelinay furidda carwo caalami ah ee magaalada Boosaaso taasoo muhiimadeeda ahayd in ay ka qayb qaataan bilicda deegaanada Puntland fursad shaqo abuurida ah dhiirigelinta maalgashiga gudaha tani waxay qayb ka tahay dadaalo badan oo aan ugu jirno sidii maalgashi loogu sameyn lahaa gudaha Puntland waxaa xusid mudan in dadaalo muddo dheer la geliyey sidii kastamka Tuurdibi uu howlgeli lahaa lagu guuleystay muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi dadaaladaas oo soo bilowday muddo hore waxaa maanta golaha baarlamaanka ganacsatada shacabka reer Puntland iyo dhammaan inta arrimaha ganacsiga danaysa ku wargelinaynaa in kastamka Tuurdibi uu yahay kastam si dhammaystiran u howlgalay lehna dhammaan adeegyada aasaasiga ah waxaana ugu baaqaynaa dhammaan ganacsatada reer Puntland in ay fursadaas dahabiga ay ka faa'iideystaan horumarinta arrimaha bulshada mudane guddoomiye mudanayaal waxaa qaybo ka mid ah deegaanada Puntland laga hirgeliyey dhismaha 11 iskuul oo cusub oo hoose dhexe iyo 2 iskuul oo dugsi sare ah muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi waxaa sidoo kale 6,852 arday danyar ah
oo isugu jira dugsi sare hoose iyo dhexe loo fidiyey gargaar ka kooban bixinta kharashaadka waxbarashada iyo agabka waxbarashada. muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi xukuumaddu waxay juhdi badan iyo dadaal xoog leh ku bixisay la dagaalanka ayaxa ku habsaday deegaano badan ee gobollada Puntland ah, iyagoo lagula tacaalay diyaaradaha qumaatiga u kaca gaadiid loo diyaarshay una dhan yihiin agabka lagula dagaalamo, shaqaale loo tababaray iyo daawadii lagu buufinayay. waxaa la hirgeliyey 23 ceel biyood oo cusub qaybo ka mid ah deegaanada Puntland, isla mar ahaantaana waxaa la dayactiray 26 ceel biyood kuwaasoo 5 ka mid ah loo bedelay awoodda isticmaalka qorraxda solar system. maadaama magaalada Boosaaso ay noqotay mid bulsho ahaan iyo magaalo ahaan korortay, waxaa la bilaabay ballaarinta iyo fidinta biyogelinta magaalada si biyo ku filan magaaladu u hesho, taas oo hadda meel fiican maraysa. tayeynta adeegyada iyo horumarinta kaabayaasha. mudane guddoomiye mudanayaal, sida aad ka warqabtaan, roobabkii ka da'ay Puntland sanadkii hore iyo sanadkan waxay khasaare u geysteen waddooyinka laamiyada ah ee isku xira magaalooyinka waaweyn. si khasaarahaas wax looga qabto, waxaa dowladdu heshiis la gashay guddiga gacanta ku haya dhismaha waddada ceel daahir ceerigaabo in ay u dayactiraan qaybta ugu khasaaraha badnayd laamiga waxyeeloobay oo ah inta u dhaxaysa Kalabayr Yalho, waxaana ka socda shaqo wanaagsan. sidoo kale waxaa soo dhammaaday sahmintii iyo qiimayntii lagu sameeyey waddooyinka kale ee wax noqday, waxaana qorshaynaynaa in dayactirkaas ay u bilowdaan sida ugu dhaqsaha badan. dabcan guddigaas oo ah guddi maamula, dabcan shirkad bay isku bedeli doontaa, laakiin qalab dowladdu ay leedahay oo shaqadaas ceel daahir loogu talagalay ayaa waxa ay qabanayaan shaqadan. si aan hadalka ahaa heshiiskaas waxa weeye waa cost to cost inay shaqadii qabtaan, dowladdana kharashka ficliga ah keliya ay bixiso, ma aha shirkad faa'iido doon ah. inaan taas faahfaahiyaan rabaa haddii lahayn. arrimaha siyaasadda, shirweynaha wada tashiga Puntland. mudane guddoomiye mudanayaal, sidaa ka wada warqabtaan, waxaa bishii Maash 15 ilaa 17 2020 Garowe inoogu qabsoomay shirka wada tashiga bulshada reer Puntland. shirkaas oo ay ka soo qayb galeen golayaasha dowladda Puntland. waxaan rabaa inaan wax yar ku daro xagga kaabayaasha la ilaaway. dabcan waxay dowladdu kaloo dhistay 1 kilomitir oo magaalada Buurtinle ah. waxay hadda gacanta ku haysaa 1 kilomitir ah oo magaalada Eyl ah oo iyadana laami maaha laakiin buurtiyo la jajabinaya ah. waxaa jira dabcan shaqooyin badan oo meelo kala duwan ay dowladdu ka wado, laakiin aan halka ku wada xusnayn. waxaan rajaynayaa guddiyada inay ka heli doonaan wasaaradaha shaqooyinka socda. inta badan waa dulmar waxyaabahan aan ka hadlayo. dabcan waddadii la fogorayo iyadana waxaan rajaynaynaa mar dhow inay bilaabato, lacagtii loo ururiyey inta ka dhimanna ay dowladdu ku darto, oo goor dhow iyadana insha allah sidii u bilaaban lahayd qorshaheeda ay dowladda geli doonto haddii ilaah idinka dhigo. mudane guddoomiye mudanayaal, shirkaas bishii 15 ilaa 17 Garowe inooga qabsoomay shirka wada tashiga bulshada reer Puntland. shirkaas oo ka soo qayb galeen golayaasha dowladda Puntland, xubnaha ku matala golayaasha dowladda federaalka ah, bulshada qaybaheeda kala duwan. shirkaas oo ujeeddadiisu ahaa in bulshada Puntland wada tashadaan, dibna u fiiriyaan halkii laga yimid, marxaladda hadda ku xeeran iyo meesha la hiigsanayo. shirka waxaa ka soo baxay talooyin iyo go'aano loo soo jeediyey dowladda Puntland si ay wax uga qabato, kuwaasoo la xiriira Puntland iyo xaaladda ku xeeran sida midnimada iyo sugidda amniga, horumarka dowladnimada iyo dimuqraadiyeynta. waxaa kaloo shirka ka soo baxay arrimaha federaaleynta Soomaaliya iyo doorka Puntland sida dib u eegidda dastuurka doorashooyinka 2020-2021, qaybsiga awoodaha iyo khayraadka, wada shaqaynta dowladda federaalka ee dowladaha xubnaha ka ah, iyo wada hadallada Soomaaliya iyo maamulka Somaliland.
waxaana ballan qaadaynaa in aan dadaal xooggan gelin doono fulinta talooyinkaas inta lagu guda jiro muddo xileedkayaga. gabagabadii shirweynahaas waxay ku taliyeen ka soo qaybgalayaasha shirka in dowladda ay dhigto gogol ay isugu yimaadaan saamileyda siyaasadeed si looga tashado doorashada 2021 anigoo tixgelinaya soo jeedintaas waxaan qaadatay go'aan ah in aan dhigno gogoshaas magaalada Garowe ayna isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo sidoo kale in aan safarro ku tagno magaalooyinka Muqdisho caasimadaha maamulada. nasiib darro weli dowladda federaalka ah kama aysan soo jawaabin baaqaas. waxaan golaha baarlamaanka iyo dadweynaha reer Puntland u cadeynaynaa in dowladda Puntland markasta diyaar u tahay haddana u tahay in laga wada hadlo arrimaha masiiriga ah ee Soomaaliya laakiin madaxda dowladda federaalka ah ay tahay cidda diidan in wada xaajoodkaas la galo isfaham laga gaaro arrimaha federaalka. mudana guddoomiye mudanayaal dowladda Puntland waxaa lagu dhisay hadafka ah in la helo hab dowladeed oo dadka reer Puntland isku maamulaan isla markaasna la raadiyo dowlad Soomaaliyeed oo ku dhisan nidaamka federaalka oo Puntland sidaa uga mid noqoto si loo ilaaliyo midnimada dalka sida ku cad dastuurka Puntland qodobkiisa 4 farqadiisa 1 Puntland waxay door shariif ah ka qaadatay shirarkii dib u heshiisiinta Soomaaliya iyadoo la garab istaagtay taageero siyaasadeed ciidan iyo dhaqaale. waxay intaas u sameynaysaa in la helo dowlad federaal oo Soomaaliyeed oo waxna la wada leeyahay waxna la kala leeyahay si mar kale looga baaqdo burburkii 1991. dowladda Puntland waxay ka tanaasushay danaheedii gaarka ah si loo xaqiijiyo dhismaha dowlad Soomaaliyeed sidaad la wada socotaan. dowladda Puntland waxa ay diidanayd ilaa ay shirkii dib u heshiisiinta Soomaaliya ka dhacay carta 2000 in dowladda Soomaaliyeed lagu dhiso nidaamka qabaliga ah ee 4.5. shir kasta dowladda Puntland waa caddaa mowqifkooda markastana waxay uga tanaasulaysa in uu burburin nidaamka dowladeed ee markaa jiray. waxaa ugu dambeyn heshiiskii dowladda Puntland iyo dowladda federaalka ay ku kala saxiixdeen abriil 2016 magaalada Garowe ayna goobjoogayaal iyo damaanad qaad ka ahaayeen beesha caalamka kaasoo cadeynaya in nidaamka awood qaybsiga 4.5 aan mar dambe dib loogu noqon doonin isla markaasna heshiiskaas lagu cadeeyay geedi socodka looga bixi lahaa taasoo ahayd in dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ka wada heshiiyaan nidaamka doorasho ee ugu habboon si waddanka uga dhaco doorasho qof iyo cod ah. mudanayaal iyo marwooyin waxaan la wada soconnaa in dowladda federaalka ah ay ku fashilantay inay guulo laga gaaro lagana heshiiyo nidaam doorasho dhammaystir dastuur awood qaybsi khayraad qaybsi nidaamka maamul maaliyadeed nidaamka garsoor iyo maqaamka caasimadda oo dhammaantood aasaasi u ah hirgelinta nidaamka federaaleynta waddanka. intii aan xilka la wareegay waxaa dhacay hal kulan oo isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah kaas oo guuldarro ku soo dhammaaday taas oo sababta ugu weyn ay ahayd in madaxda dowladda federaalka ay awoodda go'aanka gaaridda arrimaha masiiriga ah ay rabeen in ay keligood isku koobaan taasoo ka soo horjeeda dastuurka federaalka iyo mabaadi'da federaaleynta dalka. waxaa intaas idiin caddaynaysa dowladda federaalka ah iyada oo aan kala tashan lagana heshiin nidaamka doorashada waxay diyaarisay xeer ay ugu talagaleen in doorashada lagu galo kaasoo sharciyeynaya in doorashada lagu galo nidaam axsaabta badan iyo nidaamka awood qaybsiga ee 4.5 oo isku dhafan kaasoo ka soo horjeeda dastuurka ku-meel gaarka ah ee dowladda federaalka isla markaasna ay dowladda Puntland ka soo horjeesatay cadeynaysana aragtideeda oo ku aadan qodobada soo socda. dowladda Puntland waxay markasta ku taagan tahay in doorashada golayaasha sharci dejinta iyo madaxweynaha ay ku dhacdo waqtigeeda lagana fogaado muddo kororsi keeni kara xasilooni darro iyo burbur. in la laalo xeerka doorashada ee la ansixiyey kaas oo ay ku jiraan qodobo badan oo ka hor imaanaya dastuurka ku-meel gaarka ah.
in saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya ay isugu yimaadaan shir wada tashi ah oo degdeg ah si ay uga heshiiyaan nidaamka doorashada, maamulka doorashada iyo arrimaha kale ee ku hareeraysan doorashada, taas oo ah waajib dastuuri ah. waxaan caddaynaynaa in guddiga doorashada madaxa bannaan ee heer federaal ay u xilsaaran yihiin qabashada doorasho qof iyo cod ah laguna heshiiyey. mas-uuliyadooduna ma aha in ay ka hadlaan ama u gogol xaaraan muddo kordhin loo sameeyo golayaasha dowladda federaalka ah. in beesha caalamku ka shaqayso sidii ay ku dhici lahayd doorasho loo dhan yahay, la isla ogol yahay, kuna qabsoonto wakhtigeeda, iyadoo la tixgelinayo in aan dowladda federaalka ah dhammaystirin shaqooyinkii aasaasiga u ahaa qabashada doorashada qof iyo cod. waxaa kaloo jira in dowladda federaalka ay ansixiyeen xeerar badan oo aan loo marin habraaca xeer dejinta, oo ay ka mid tahay in xeerka ay ka mid tahay lagana la tashan cidda ay khusayso oo ay ugu horeyso dadweynaha iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. waxaa xeerarkaas ka mid ah xeerka batroolka oo ahayd in laga heshiiyo habqaybsiga khayraadka inta aan xeerka la ansixin. dowladda Puntland waxay horey u caddaysay maantana ku celinaysaa in xeer kasta oo aan dowladda Puntland lagala tashan inaysan qayb ka noqon doonin fulinteeda. haddaba dhaqamadaas aan kor ku soo sheegnay oo ay ka mid yihiin wada tashi la'aan, awood sheegashada siyaasadeed, deeqaha caalamiga ah iyo ku dhaqan la'aanta dastuurka waxay qayb ka yihiin aragtida guracan ee la rabo in lagu wiiqo nidaamka federaaleynta Soomaaliya ee lagu heshiiyey. aragtidaas oo ah mid u adeegaysa dhiirigelinta nidaamka Soomaali dhiirigelinaysana nidaamka Soomaali ku burburtay ee dowlad dhexe oo xoog leh, strong unitary system. sidaa daraaddeed waxaa la gudboon dadka reer Puntland iyo Soomaali inteeda kale in ay ku baraarugsanaadaan aragtiyahaas guracan, ilaashaana nidaamka federaaleynta waddanka, in aysan ku ciyaarin siyaasiyiin dano gaara leh. guddoomiye mudanayaal, dowladda Puntland waxay mar walba soo dhoweynaysaa sidii dadweynaha iyo siyaasiyiinta reer Galmudug ugu tashadeen aayahooda horumarinta degaankooda iyo dadkooda, una sameeyeen dib u heshiisiin dhab ah iyo yegleelid maamul loo dhan yahay oo hanta hoggaaminta Galmudug, taasoo qayb ka noqonaysa nabad ku wada noolaanshaha bulshooyinka dariska ah sida Puntland iyo Galmudug, iyo ka wada shaqaynta la dagaalanka argagixisada, dembiyada abaabulan iyo xakamaynta colaadaha beelaha wada degan oo dariska ah. kuwaasay ugu dambeysay sidii loo maareeyey colaadii beelaha ee taagneyd loona abaabulay dib u heshiisiin bulsho sidii shirkii ka dhacay Bandiiradley, isla markaasna laga wada howlgalay argagixisadii dadka ku dhibayay magaalada Gaalkacyo, iyada oo qayb ka mid ah la laayay, qaybna la soo qabtay. waxaan rajaynayaa in la joogteeyo wada tashigaas. dowladda Puntland waxay sidoo kale soo dhoweynaysaa heshiiskii taariikhiga ahaa ee ka dhacay magaalada Nairobi oo lagu dhammaystiray khilaafkii u dhexeeyey madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo golaha isbedel doonka Jubbaland, taas oo Puntland qayb ka ahayd isu soo dhoweynta madaxdii kale aragtida duwanaa. dhammaan dadaaladaas aan soo tilmaannay ee Puntland qayb ka ahayd waxay ka turjumaysaa sida Puntland ay u dareensan tahay mas-uuliyadda weyn ee ka saaran taabagelinta hannaanka federaalka, xalinta khilaafaadka ka dhexeeya bulshada, wada dhisatay maamuladaas iyo xoojinta iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. sida aan horey u caddaynay guddoomiye mudanayaal, sida aan horey u caddaynay, Puntland waxay soo dhoweynaysaa wax kasta oo aan wax u dhimaynin madax bannaanida dowladda Soomaaliya iyo xuduudaha dowladda Puntland. waxaan caddaynaynaa in aan marno ogolaan doonin natiijo ka soo baxda wada hadal kasta oo lala galo maamulka Somaliland ee Puntland aysan qayb ka ahayn. Puntland waxaa kala dhexeeya maamulka Somaliland khilaaf dhuleed, taasoo u baahan in aan ka gaarno xal waara si looga fogaado colaad jiitanta oo dhiig badan ku daato. mudane guddoomiye mudanayaal, ugu dambeyn waxaan idin rajaynayaa in howlaha idin horyaal ay si guul ah idinku dhammaadaan. waxaan si rasmi ah inoogu furan kalfadhiga 46aad ee golaha wakiilada dowladda Puntland.
waa mahadsantihiin